بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتي بكسو دوادي يوتيوب شانلka qodax production falan dadka cusub tahay subscribe saar like saar share gari comment mahadsanid. Mawduucan maanta ka hadlayno waa 5 qodob oo ah af Soomaali, af Carabi, af Ingiriis, taasoo aan arkay dad fara badan oo adeegsanaya afaan afkeeni ahayn oo ka mid yihiin af Carabiga iyo af Ingiriiska iyo Soomaaliga iyo si dabargo ay rabaan. Marka mawduucan maanta bal ila dhigto ila dhageysta. saacad alla af Soomaalina ma aha af Ingiriis time baa lagu dhahaa waan garanaynaa balse af Soomaali maxaa lagu dhahaa bal ila ogaada. af Soomaali sidaan maqlay ama la iigu sheegay ama aan kuba ogahay waxaa lagu dhahaa goor sheeg, xilli sheeg, amin sheeg iyo waqti sheeg. intaba waxaa laga yaabaa inaynu afkeena ka hodansan yahay afafka kale waayo afar eray oo af Soomaali idin sheegay halka Ingiriiskana hal eray idin ka sheegay af Carabigana hal eray. qodobka labaad waxa weeyaan ereyga sanad af Soomaali ma aha ereyga year ba af Ingiriis ah. af Soomaali maxaa lagu dhahaa sanad. ereyga sanad af Soomaali waxaa lagu dhahaa gu ama kal ama seven, taasoo aan ka maqlay dadkii hore iyo heeso fara badan oo karaamiyo oo maraya. marka saas aawadeed ereyga gu waa af Soomaali ama kal seven labaduba waa af Soomaali. marka aan raadino afafkeeni intaan dayacno afkeena afaf kalena difaacino keena ayna horan baan leeyahay. qodobka saddexaad waxa weeyaan quraac af Soomaali maaha af Ingiriisna waxa lagu dhahaa breakfast. af Soomaali marka maxaa lagu dhahaa bal ogow. quraac af Soomaali waxa lagu dhahaa afur oo ah micnaheedu afkaaga wax sii ama xalay oo dhan waad hurday afkaaga wax sii saan u fahmay dad odayaal waaweyn ay sheegeen ayaan dhowd baan raadiyay af Soomaaliga waxa lagu dhaho quraac iyo qadiyo cashube. marka ereyga xigana waxa weeyaan oo qodobka afraad qado af Soomaali maaha af Ingiriiskana waxa lagu dhahaa lunch. bal af Soomaali maxaa lagu dhahaa ogow. af Soomaali qado waxa lagu dhahaa xarimo taasoo ah maalintii qorax baa jirta qoraxda marka laga soo noqdo guryaha lagu soo noqdaa sida reer miyiga ama reer magaalka labadaba marka guriga lagu soo noqdo waa la harsanayaa xarimo saasu ereygu asalkiisu ka yimi walow aan ka maqlay Allah naxariistay abwaano fara badan sida Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye Allah naxariistay. bal qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan casho af Soomaali ba miswa af kale. ereyga casho waa af Carabi ereyga Ingiriiskana wuxuu ku yahay dinner oo ah casho. af Soomaali maxaa lagu dhahaa bal casho. af Soomaali casho waxaa lagu dhahaa xiraad micnihiisa ma garanayo balse xiraad wuxuu kastoo yahayba waa af Soomaali dhab ah oo erayadii hore ee inuu isticmaal jiray ah. iminka dhalinyarada joogta miyi iyo magaaloba waxay dhageystaan waxa casriga ah oo waayo nuxurkii dhabta ahaa ee afkeena weyn ka teginaa af Ingiriis iyo Carabi qoom walba meesha ku sugan yahay uu la falgalay. tusaale ahaan dadka jooga Soomaalida galbeed afafkoodii waxaa ka buuxsamay af Xabashi af Oromo marka waxa weeyaan afkeenii iyo dhaqankeenii aan dib ugu soo laabano. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.